marka la kusoo dhawaado channelkayga maanta waxaa sameynaynaa su'aalo iyo jawaabo darad ayaa waxaa dhigay dadkan maxaa rabtaan inaan ka hadlo video soo socda soo su'aalo badan ayaa soo gaaray soo arkaysan waxaa ku jira page-kayga Facebook-ga magaca Facebook page-ka waa kan haddaadan aqoonin follow dhe meesha ayaa su'aalo kasta igu soo weydiin kartaa wixii fikrad ay igu soo darsan kartaa so let's go su'aalaha gudubno soo arkaysan waa sawiradeeda sawirada ugu dambeeya waa kuwan kan shalay soo dhigay soo waa sawir 2 sano ka hor caption kuma arki wax ku qoran ma arki kartaan kaamirada ayaa qarnayso 2 sano ka hor ayuu sawirkanna waa sanadkan dhaxaysa soo farqiga u dhaxeeya waa arkaysaan size badan ayaa ugu darsamay waa kobcay waa koray soo dad waxay soo qorayeen oo sawirkan waxa wanaagsaneed sawirkan 2015 soo arkaysan horta marka gymka wadid waqti progress sameynaysa oo isbedel ayaa sameynaysa hadii ahaato inuu jirka kobco hadii ahaato inuu hilib iska ridid soo arkaysan sawirkan waxa ahaa 60 kilo 60 iyo 1 kilo ma xasuusto laakiin 60 kilo oo ogaayna ahaa sawirkanna waa hadeertan kilooyin badan ay u darsamay waa kobcay jirka uu weynaaday kilooyinka qaadi jiray way kordheen cilmiga gymka u lahaa iyo cuntooyinka iyo farqiga u dhaxeeya waxaas dhan waa kala bartay soo marka hadda 2015 saa u ekay ilaa hadina u ekaada aaraftid waa waalanta adina waa khaldan tahay sababtoo ah hadda 2 sano 3 sano jirka uu isku sii yahay wax un baa ka khaldan hadii ahaato cuntadaada hadii ahaato jimicsigaaga waxa ka khaldan soo weliga macni progress samee wax walba sameynaysid jimicsi kaliya ma hada wax baranaysid shaqeynaysid progress lahaw isbedel lahaw step marba step gudub soo aka gudubno waxana waa sawiradeeda hadda page-ka booqatid ayaa arkaysa waxa dhan soo sawirka ayaa commentiga dadka ku weydiiyay maxaa rabtaa inaan soo qoro inaan ka hadlo macni next video dad badan ayaa wax soo qorayay soo waxaa dul marayna kaliya kuwa commentiga inbox-ka ma akhrinayno sababtoo ah inbox-ka su'aalaha zaid ay u badan yihiin marka maalin kalena u sameeyay noqonaysa ugu gudubno su'aasha koowaad su'aashan waa paragraph dheer max ayaa ka yimaaday السلام عليكم عبد الوهاب waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aniga waxaan ahay 18 sano jir waxaan ahay 80 kilo height-kaygu ama dhirkaygu waa 165 waxaan rabaa 30 kg ina iska rido wow 30 kg zaid oo badan tahay 30 kg hadii pounds loo bedelo waa almost 70 pounds waa 70 pounds dadka Mareykanka jooga oo kiilooyinka aan isticmaalin teeda kalena hilibka aad wuxuu igaga yaalaa xabadka lugta iyo gacmaha sida iskaga ridaa 5 bilood gudahooda maxaan sameeyaa hadda waxaan ahay form 2 form 3 anigoo caato ah ayaa dhisan ina ugu gudbara oo form 2 form 3 wuxuu ka wadaa dugsiga sare form 2 waxa waa sanadka labaad dadka aqoonin Afrika laga isticmaalaa iyo wadamada waxa maleynaa Ingiriiska laga isticmaal form 1 form 2 dadka Europe joogo dadka Mareykanka joogo grade 9 grade waxaas isticmaalaan soo على أي حال أو قدبنا ولكن سؤال شيء ساعة ذاك جوابه قرط وحور وصدق كيلو 5 بلود الناس كجريدو تاس معناه تهاي محلها هذا بدن إنه بهاي جهد بدن إنه وحو سمينا جلي صوبته صدق كيلو 30 باوند وح زايد بدن مركو حب بحنانا إنه وقت بدن جليه مالو ريدي كرا يس عافمات متاهي ماي صوبته صدق كيلو 5 بلود وحوا وقت بقينا عنتها زايد ستريكت كاركتير زايد او يريد جميع سمين معنيه او زايد وادكادو مره روح مكل تلن لها 5 بلنو 30 كيلو اسكريد كود هore waa fikradeeda sababtoo ah caafimaad ahaan uma wanaagsan kiilooyinkan degdeg kaaga dhacay ma wanaagsan hadhowna waxa dib u iman kartaa in kiilooyinku u soo laabtaan laakiin hadii aarabti inaad sameeysid oo adigu qanacsan tahay oo caafimaadkaaga aad leedahay waxba igama galin waxa ku leeyahay صدقاس شنتاس بلود waxaa jaraysa wax carbohydrate la dhaho dhan ma cunaysid week dhan hal maalin ay carbohydrate ka cunaysid sabtida ama axada jimcaha khamiiska maalinka jeceshahay maalintaas carbohydrate waxa la dhaho carbohydrate badan cunaysa 6 maalin oo kale wax carbohydrate la dhaha ma cunaysid medical waxa cabaysa biyo zaid u farabadan biyo cadaanka dadka dhahay biyo cad ma lagu ceylaa may biyaha cad wax calories ama laha waxa lagu ceylaa cuntada calories kale oo waxa jirka wax u tarta soo biyaha cad wax ma lagu ceylo waxay ka caawiyaan caatodid soo biyo badan ayaa cabaysa waxa sameynaysa cardio
cardio asameynaysid labo qayb sameeyaa labo maalin waxa sameynay heat cardio daqiiqada yar ayaa ordaysaa waxa sameynaysaa orod zaida waa ogahay qofku markuu booran yahay way ku adkaanaysaa laakiin waxa waa la qabsanaysaa laba waxa sameynay wax la dhaho low intensity cardio waxa waa daqiiqada badan ordaysaa saacad ilaa waxa saas waqti badan macnaheedu sameynaysaa orodka waxa kale oo ku kordhinaysaa sorry mobilkayga zaid u qeylnaa waxa kordhinaysaa biraha ay qaadista bilaabaysaa sababtoo ah biraha mar badan ay sheegay calories extra ay gubaysaa baruur extra ay gubaysaa so waxa kordhinaysaa hilibka maxaa lahaa bira qaadista ayaa sameynaysaa saa sheegay intaas hadaa samaysid waxa possible ama macquul ah inuu hilibka ka dhaco 5 bilood gudahooda so marka wax faahfaahin dheeraada waxa ka heli kartaa YouTube-kayga sababtoo ah fiidiyoyo badan ayaa jira kaga hadlaysa isku caateeyo su'aasha kale waxa waaye walaashay ay ka imaado iska kaftamaysaa sidee isku cayiliyaa oo aan oo ka hadasho oo ka xeelo si isku cayiliyaa hadalo iska kaftamaysaa walaashay waaye ma buurno mana caateysno soo waxay rabtaa inay kiilo isku darto kiilo isku darista waxa cunada kaliya kordhi waqti waxa waqti ma ku dilay midaas sababtoo ah walaashay maalin walba isla joognaa soo deerto waxay soo weydiin kartaa su'aashan kale maxaa waaye وخصوصا سؤال شيء ريبلاي وكيالكو سيبته يسوق ريبلاي ده وجهه اوكي سؤال شيء سؤال النية وسؤال شيء ده وحي تحي وحن ربعينا وحارو حلبل اما 1 month حلبل هذا 1 month واسكو منزل مع الله يعني وكالدية حلبل انا كجرو 20 إلا 25 كيلو حتى انا عليسكي هو 9 دريكي هو 1.7 ام 1.3 متر marka muhiimada wax okiyalka xogto xamaa ana wax akhriska aqoonin marka muhiimada warkaygu waa sideen bil gudaheed ku jira ilaa 25 kilo Michael Jabdal waxa isku dayaysaa macni waxa macquul ahayn waxa hadda ka hadlayna 30 maxalla kilo 5 bilood adiga hal bila waxa rabtaa ina 25 kilo ku ridid I don't know dadkina kaftamayaan ama serious ka tahay sababtoo amar badan waxa soo gaar qoraalay noocaas hal bil gudaheeda 30 kiilo iska yeelaa fikir marka hore horta hal bil gudaheeda 25 kiilo ma kugu soo fuusho waa may soo hal bil gudaheeda 25 kiilo kugu soo kordhamay sidee marka u rabtaa ina hal bil gudaheed ku ridid macquul maaha soo marka dadka inay kaftamayaan in kale marmar waxa soo dadkan okay wixii qoraal la qoraa iska soo qorayana macnaheedu isdhaha marmar soo marka brother waxa waaye kaftamaysaa سؤال كلام محمد عبدي أي كتمي وحاربا إن أتكهذا شو بيها بدن عادي ملوع عيلة أوكي هذا حتى سؤال شو هذا كشجع بيها بدن أو بيها عاد ملوع عيلة ماي بيها لو ما عيله هرتدتك وحا سكون حيعسن محل عيلة محل وعتبه وحلو عيله وحوا وح كالوريس ذاك هذا ووح عناه وجركا قليا ومعني جركا قياست عناه هذا قياست عنده أعنت الوعي سو بيها وح كالوريز أملها بيها داعبت وح كوكر ملها وكو عاونا يعني هلب كادع صوبته وسق جيركا يكا بحايا مركا سو ديدو كله وح كبحايا وبيو وسق جيركا كبحايا سو مركا بيها عاد مركا عبت جيركا فايدة يوليهن سو بيها عاد ملوعي لا ما سو بيها عاد لو معي لكن ويكو ناكسيين أشكال وحي كتمي عبد الرحمن عبد الله فايدوينك عانها يوح والبول لغا هلو hadday ay leeyihiin mideeda kale kafayga wadna xanuun miyuu leeyahay soo marka walaalkan wuxuu rabaa inuu ogaado biyaha ameen caanaha ma lagu caylaa ama faa'iidooyinka ay leeyihiin kafayga wadna xanuun miyuu leeyahay su'aasha kooda u gudbo caanaha ma lagu caylaa fiiriyo hore ayaa ka sameeyay waxa xadka cuntida lagu caylaa aan caanaha halka koob cuntida cabti lagu macaylo mid kale caanaha faa'iidooyin ma leeyihiin iyo caanaha faa'iidooyin badan ay leeyihiin calcium protein wax walba ku jiro laakiin haddana xadkooda dhaafisid waa lagu caylaa jirka maxaa waaye cayl ay gelinayaan sababtoo ah 5 koob 6 koob maalin ka cabaysid calorieskaas badan iyo cuntada dheeraadka cunaysid waa ku caylaysaa soo hal koob caana kaliya kuma caylaysid mid kale caanaha Soomaali haddana sida u cabno waxa waa sokor ayaa ka buuxinaa sokortaas ayada haddana calories kala dheeraad ah soo ayagan dib ay ku keenaysaa caanaha faa'iidooyinka leeyihiin qof walba uu yaqaan sababtoo ah quraanka lagu sheegay
maalintkood markaa dhalano waxna la siiyo caano soo marka caanaha faa'iidooyin ay leeyihiin maxaa la dhahaa kaamirada video ayaana sii socda su-aasha qaybteeda kale waxay ahayd maxaa waaye kafeega wadna xanuun muu leeyahay kafeega wadna xanuun ma laha laakiin haddii aad iska badisid waxaa waa wadnaha garaaciisa ayaa badanaya sababtoo ah kafeega wadnaha ayuu affect garayaa soo marka wax walba la iska badiyo dhibaato ayay leeyihiin kafee kaliya maaha hal koob laba koob kafee maalinka ilaa 3 koob kafee waxba kaama tarayso laakiin haddaa badsatid wadnaha garaaciisa badanaya soo wadnaha garaaciisa markuu bato zaid noqdo qasab effect yaa maana wadnaha soo haddaa wixii aad iska badisid dhibaato ayay leedahay laakiin koob kafee laba koob kafee dhibaato maaha su-aasha kale hadda ugu weyn waxay ka timid Maxamed Ciise Usmaan waxaan jecelahay inaad ka hadasho su'aal aan hadda ka hor qoraal ahaan kugu reebay YouTube-ka oo ahayd qolka kulul ee la galo markii jimka la dhameeyo muxuu faa'iido leeyahay walaalkan wuxuu ka hadlayaa sauna room-ka qolka saunaga qolka kulul mid kale hadda su'aal YouTube igu reebtay ogaal bil aadan ahay YouTube-kan commentiye badan lagu soo qoraaso kulli ma wada akhrin karayo hadda su'aal ii reebtay xanaaqin dad xanaaqsan waxa arkay niyo su'aasheeda ma ka jawaabtid niyo xumaanta ii qabtid waxa way dhahaya isdaji Facebook waa leeyahay Snapchat leeyahay qoraal private igu soo qor markaasna ka jawaab laga yaabo qolka sauna room-ka muxuu faa'iido leeyahay sawadana qaan qolka sauna room-ka waxa loogu talagalay relaxation waxa la inuu jirka ku dajiyo marka daaranta oo kale inuu jirka ku dajiyo laakiin waxa arkay dad uu isticmaalay inay hilib iska ridaan معقول معها هلب وحال سكيريدا أما جيركا مركو وح جواي وشقينا لكن هذا حال ما الإسكاف ديسيد أو ما ترى جيركا كوالك شنيع ديزيس معناه هذا ما هديت كاس إنه برود جوايو لكن وحال لو طلق على كلية إنه جيركا محلها كودجو أو هذا معناه جيركا كيو حسكابه هو مساج عمل وعرفت هذا خلق صون روم كأجشيد مركز صوب بحيس دحوا دور جيركا لن تجنا صوب بحيس حبين كسو ناكسنا أخرده لكن هلب مريضة ريت كاس بدن مش كاب حي ما يهلب مريضه هلب كاس مرجع جيم محلها هذا السؤال هان أنت عن محلها صون روم كأم خلق كل فولن أنا أساس ملاجر هذا كور لكن واحد جابي كيلوين كي تجابي أنت ماشي قلن مركز صوب حي اسكو ماشي لا يعني وحفرت ومرحه سو أنت عن قولك قلن كيلو إسكاقات marka soo baxay hadan kiilooyinka miisaanka fuul arag inuu wax ka dhacay macquul maaha dhiidkaas badan kaliya waa wax ka baxay oo soo ka baxaysa marka cunno iyo biyacatin horka soo laabanay su'aasha kale waxay ka timi walaasheen Layla Muhammad Jaamac birta la qaado dumarka ma waxbay u dhibtaa caafimaad ahaan no birta caafimaad ahaan dumarka iyo ragga wax uma dhinto sababtoo ah caafimaad ayay ka helaan faa'iidooyin ayay u leedahay shape ayay noo yeeshaa jirkeena ayaa qurxisa soo birta dumarka dib ma u keenan may mid kale dumarka gabdhaha Soomaalidu wuxuu ku leeyahay bir hadaa qaado nin ayaa way keenaya nin way kaashaha wax hormoon la dhax hormoonka jirkeena ayaa nin ama naag dad ka dhigo ilaahana dadka saas u abuuray soo hadaa bir qaadid wax ninka dhigay ma haday saas aan leed dumarka maxaa la transgender ga macnaheedu dadka ayagoo dumar inay rag isku bedelaan rabo ayaa bir la qaadi lahayn kadib rag ay noqon lahayn soo ma fudda si rag lagu noqdo ama si dumar lagu noqdo laakiin birta waxba dhibaato kuma keento sa arkaysa replaygo video hore ay ka sameeyay hadaadan arkin channelkeena ku cusub tahay laga yaabaa dadkii hore channelkeena ku jiray yaqaanaan video inaad sameeyay su'aasha kale waxay ka timi Cafifa qaab dhiska jirka sida gabdhaha jecel inay kor u dhubnaadaan ilaa dhexda qaarka dambana u weynaadaan buuriga buutiska ma body okay walaashan waxay rabtaa inay ogaato sida dhexda loo dhoobiyo jirka hoosana loo dhiso buuriga sida tiri horta yani niraga ay shaqo ma kulli macna si dumarka buuri u dhistaan ama macna dhex iska yeelayaan marka waxa wanaagsan qof dumar ah waxa soo u sameeyay inaad weydiisid haddii aadan aqoonin waxa ka heli kartaa YouTube-ka hadaa ku qortid kaliya sida dumarka maxaa la dhahaa jirka u dhistaan waa ka helaysaa soo marka walaashay waxa ku leeyahay qof maxaa la xirfad u la weydi su'aasha kale waxay ka timi Moha daleel doore sidee qof mashquulsan oo ay muxuu ka wada mashquulsan I think mashquulsan inuu ka wado oo aan hayn chance uu ku yareyn karo jirkiisa asigoo cunaya cuntadii daily food within Somalia ما فاهم سؤالش لكن waxay ila tahay inuu ka wado qof busy ah ama mashquulsan sidoo hilibkiisa kaga yareen kara soo cunada Soomaalida dhaqanka u lahayn cunaya
horta busy waxa la dhahaa dadka ayaga iska dhaadhiciyey wax busy la dhaha ma jirto 24 saacadood haysataa adduunku waxaa waaye Bill Gates iyo Mark Zuckerberg kulli 24 saacadood kaliya haystaan Bill Gates wax ka taajirsan malaha 24 saacadood ayuu waqti ku almeeyay u helaa so maxay leedahay Bill Gates ka busy san hada ay leedahay ma umaleynay inuu qof saasay jiro sababtoo ah 24 saacadood haysa saacad aad ku trainayso maadan waynin mid kale hadii cunad dib tahay waxaa jir wax animal fasting la dhaho daarto inay saacadaysid 16 saacadood saacada ay cunada ka go'aysaa marka soo laabatid shaqada soo laabatid ay cunadaadi maalinkii lagu talagalay dhan cunaysaa mid kale hadaa sheego dadka oo markay soomayaan animal fasting sameynayaan waxaa muhiim ah inaa cuntid maalinka cuntada lagu talagalay marka afuraysid ama cuntada waqtiga cunitaanka bilaay sababtoo dad badan arkay ku dhahay waa soomanahay markay soonka iska furayaan cunada cunayaan waxa arkaas wax zaid u yar cunaya kadib dhibaato ka imaanayso so waxaa muhiim ah marka cuntada soonka iska furtay hadda waa soomana aniga maanta idil wax ma cunin almost hadda waxa waa 9 saac 18 saacadood ayna soo maraba saacad kadib cunto cunis bilaabaya marka 6 saacadood haasta cuntada ku cunaya waxa qasab ah in cuntadeeda dhan cuna isku durqi hada dib ugu taxta aan cuni karin so marka waxa muhiim ah waxa saarteen waxa cabaya BCA calories malahan waa cabitaan marka soo meesid hadaa rabtid in murqaha iyo wax ka dhicin oo wanaagsan inaa cabtid oo su'aasha kale oo gudbo wuxuu yiri walaalkeen waxaad ka hadashaa xulbada jirdhiska ma loo isticmaalaa walaal dad badan ku muraysana iyo diet-ka ku fiican dadka dalkiisa hooyo jooga maadaama aad qurba joogto la kala duwan yahay thanks walaalka Khalid wuxuu rabaa inuu ogaado xulbada weligii ma arkin qof xulbo jim isticmaalaya jirdhis isticmaalaya mana aqaan weligeena ma isticmaalin ma ka hadli karay soo qof wanaagsan oo su'aasha wanaagsan inaa raadisay wanaagsan mid kale diet-ka dadkii wadanka jooga horta dadka wadanka jooga diet-ka sameyn karayaan dadka wadanka jooga hadii la dhaho diet iyo dadka qurbaha jooga dadka wadanka jooga naga wanaagsan tusaalaha ku siiyo wadanki waxa ay leeyahay khudaar fresh ah oo markaas beerta laga soo gurmaalin hadda u baahato taale wadanki waxa helay hilib nadiif ah waxa helay dooro nadiif ah guriga ku dhaqan kartid halkan dooro guri lagu ma dhaqan karo wadanki waxa helaysa ukun dooro ina tabactid ukunta guriga dheen kartaa wadanki waxa helaysa hilib markaas nadiif ah wadanki waxa helay caano nadiif ah oo wax dhan soo marin soo markii qofka haduu ku dhaho dadkii wadanka jooga diet wanaagsan ma haystaan been ayuu ku sheegay mar walbana waxa aaminsanahay dadka wadanka jooga hadii diet la dhaho ama jirdhis la dhaho inay dadka Yurub jooga fiican yihiin ma sheegin protein kan iyo waxa supplementada isticmaalayno laakiin wax kale dadka wadanka jooga ayaa naga fiican soo marka waxa YouTube ku sheego kulli wadanka waa laga helaa khudaar ku sheego wadanka diet-ka ku sheego YouTube-keedu khudaar ma wadanka laga helin hilib dooro ukun waxa ku sheega wadanka waxa dhan waa laga helaa marka brad excuse iska dhaaf hadii wadankii waxaas ma yaalo wadankii wax dhan ayaa laga soo gaaray mid kale su'aasha kale Abdul Qadir assalaamu alaykum warahmatullah codsi qofkii ka faa'iideysanayo wax macquul ah weydiyo Abdul Wahab ilaahay khayr asiyo wallahi waa wiil dadaal badan nagana mudan duco aan duceeyno dhamaanteen ma sha Allah shukran brother ilaahay kulligeen waxa jecelnaa nasiyo mahadsanid macnaheedu ducada ay duceysay ina dadku u faa'iideeyeen shaqadeeda waay sababtoo ah channel marka bilaaway wuxuu ahaa qorshaha u bilaabay ina dadka saacideeyo marka zaid oo mahadsan tahay jarka kale wuxuu weydiiyay Maxamed Abdulaziz how to build huge lots and lots waxa way murqahan halka ku yaala hada arkaysaan dabarka geeskiisa murqaha ku yaala soo sidee loo dhisaa lots daarfid inaad dhisid koodar waxa muhiim ah inaad samaysid maxaa la dhahaa deadlift hada taqaanid labo waxa jir wax la dhaho rack pulls dabarkan laatka zaid ugu wanaagsan mid kale waxa jirto waxa sheegay inuu yaqaan filay sababtoo English ay ugu soo weydii kullina waxa ku sheegay waa English mid kale waxa jirto waxa la T-barrow hada taqaanid soo saddexdaas daa samaysid laatka zaid ay isbedel ugu dareemay mid afraad oo amar walba jecelahay inaan sameeyo waxa waaye wide maxal laha pull ups waxa sameeynay kala fog soo zaid ay asna laatka ugu shaqeynaya soo saddexdaas ku day su'aasha kale waxay tir adeer taarikay ayaan maraya wax ii sheeg soo kaftan waa soo jeedaan taarikay wax la dhaama jiro su'aasha ugu dambayso oo amaanta ku soo gabagabeyneen waxa waaye waxaan assalaamu alaykum waxaan u baahanahay inaad igala taliso what is that ma aqaan CHP
miisaankaygu waa 45 kg waxaan rabaa inaan noqdo 67 kg dhererkaygu waa 1.60 meter da'dayduna waa 17 years old